bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada wararkii caalamka idinkaga imanaya telefishinka caalamiga ee Somali Channel xarunta dhexe ee magaalada London. wararkana waxa uu diyaaray anigoo Cabdilaahi Xuseen Mariya. wararka aan idin haynana waxa ugu dooran baarlamaanka Soomaaliya ku meel gaarka oo maanta ansixiyay 20 sano kadib xukuumadda wadanka Soomaaliya miisaanad sanadeedka ay ku shaqeyn doonto. iyo tacadiyada xoogan ee dadka shacabka ka haysta wadada kaliya ama baqura ee soo gasha suuqa weyn ee Bakaraha ee magaalada Muqdisho oo isa soo taraya. xukuumadda dawladda ku meel gaarka oo soo bandhigtay waxqabadkeeda horumarineed ee ku aadan sanadaha soo socda. wiil dhalinyaro ah oo ku nool gobolka Sool magaalada Laascaano ayaa aalad casri ah u soo bandhigay TV-gan caalamiga ah ee Somali Channel. magaalada Boorame ee gobolka Awdalna waxa lagu qabtay kulan oo ku soo booqday meerka magaalada Boorama macjarka hilibka ee magaaladaas. intaasi waa wararkii kooban haatana iyaga fidsan. baarlamaanka dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa 20 sano kadib ansixiyay miisaaniyad sanadeed ay xukuumadda ku meel gaarka ay ku shaqeyn doonto. warkan waxaa nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Nimco Maxamed Bashiir. kulan maalintii saddexaad mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliyeed ay kaga doodayeen miisaaniyad sanadeedka ay ku shaqeynayso xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya oo la hor keenay ayaa lagu qabtay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. kulanka oo uu shir gudoominayay kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiye ku-xigeenka koobaad Cabdiweli Sheekh Muudey ayaa waxaa ka soo qayb galay 287 xildhibaan. mudanayaasha baarlamaanka ayaa kulanka marka uu furmay waxa ay warbixin ka dhageysteen gudoomiyaha ku meel gaarka ee guddiga maaliyadda baarlamaanka Xuseen Ceelaabo Faahiye oo sharaxaad kooban ka bixiyay habka miisaaniyadda loo soo diyaariyay. markii mudanayaasha baarlamaanku ay dhageysteen faahfaahinta miisaaniyadda ee uu ka bixiyay xildhibaankaasi ayaa intooda badan waxay isku raaceen in miisaaniyadda lagu codeeyo habka gacantaaga ah. 281 xildhibaan ayaa codka gacantaaga ah ku ansixisay miisaaniyadda sanadka soo socda ay ku shaqeynayso xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya halka 4 ay diiday midna uu ka aamusay. gudoomiye ku-xigeenka koobaad baarlamaanka Cabdiweli Sheekh Muudey ayaa ugu horeynba mudanayaasha baarlamaanka ugu mahadceliyay habka kalsoonida leh ee u ansixiyeen miisaaniyaddan sanadka soo socda ay ku shaqeyn doonto xukuumadda Soomaaliya. waxaa ka aamusay hal sidoo kale ansax ku tahay miisaaniyadda xukuumadda waxaa kaloo idin sheegayaa shirki beri waa jiraa shirki beri haliyaan waana maasuulkiisa waa ka xiray. wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo lacagta Xuseen Cabdi Xalane ayaa isna markii la ansixiyay miisaaniyadda kadib waxa uu shir diray ku qabtay xarunta golaha shacabka. waxaana wasiirku u mahadceliyay mudanayaasha baarlamaanka isagoo oo si xarisay in si aad ah ugu faraxsan yahay muddo 20 sano kadib in dawladda Soomaaliya ay yeelato miisaaniyadda ay ku shaqeynayso isagoo sheegay in kooda bisha koodii lagu soo hayso ay si toos ah u hirgeli doonto miisaaniyaddan isla markaasina gudahaan shaqaalaha dawladdu ay heli doonaan xuquuqdoodii. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idin sheego muddo 20 sano kadib in markii koobaad ay dawladdu karti u yeelatay inay miisaaniyad dhamaystiran soo diyaariso baarlamaankana keento sidii sharcigu ahaana. waxaan aad ugu faraxsanahay xildhibaanadu inay miisaaniyaddii ansixiyeen taasoo ayadana muujinaysa inay tahay bulshada xilkii wadaniga ay ka wahayeen. annaguna ka wasaare maaliyad ahaan waxaan idiin sheegayaa in wasaaraddu ay xoog badan saartay dadka khubarada oo dhinacyada iga taaganna ay juhdi badan geliyeen miisaaniyadda. inkastoo maanta mudanayaasha baarlamaanku ay si kalsooni leh ku ansixiyeen miisaaniyadda sanadlaha ah ee dawladdu ay ku shaqeyn doonto ayaan haddana la ogeyn sida guud ahaanba shaqaalaha dawladdu ay ku heli doonaan xuquuqdooda maadaama intii ay jirtay dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya inta badan shaqaalaha dawladda iyo ciidamada qalabka sida ay cabasho soodan ka muujin jireen mushaar la'aan baahsan. Nimco Maxamed Bashiir, Somali Channel, Muqdisho. wadada qura
ee laga soo gala suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho ayaa tacadiyada ay kala kulmaan dadka shacabka ah ee doonaya inay ka dukaameystaan amaba ka ganacsadaan suuqaas weyn ee magaalada ay isa soo tarayaan. wariye Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto ayaa umuurtan eegaya. tacadiyadan iyo dhibaatooyinkan isdaba joogga ah ee dadka shacabka ah oo iyagu inta badan ka soo gaarto dagaalada iyo duqeymaha ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa haddana waxa dhibaato dheeri ay kala kulmaan isticmaalka halkani wado oo iyadu noqotay mid kaliya ay shacabka iyo gaadiidku wada isticmaalaan kolkay u kala gooshayaan deegaanada ay kala maamulaan dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo xoogagga Islaamiga. wadadani ayaa shacabka lagama maarmaan u ah inay soo maraan maadaama suuqi weynaa ee Bakaaraha oo muhiim u ah nolosha dadka ay tahay wadadani mid kaliya ee laga soo galo tan iyo markii ay dagaalada ku xirmeen wadooyinkii kale ayaa haddana waxa iminka aad u soo baxaysa in dadka ay caaluwa ka joogaan isticmaalkani wadadani dhibaatooyin naf iyo maalahna ay kala kulmaan xilliyada ay isticmaalayaan dadka ayaa waxa ay la kulmaan qaraxyo miino oo isku aasaan dhinacyada dagaalamaya xilliyada qaarna dagaalo ayaa si kadis uga dhex bilowda ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo amisom oo iyagu isku horfadhiya isla wadadani mararka qaarna ayba dhacdo in wadadani ay u xiranto isticmaalka gaadiidka iyo dadka oo aad uga bata ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya oo iyaguna dhawaan baaritaano ku bilaabay baabuurta dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ayaa iyaguna qayb ka noqday xirnaashiyaha mararka qaar ku yimaada wadadani haddaba waxa Somali Channel u suura gashay in taliye ku xigeenka ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ee aaga ex control afgooyi ilaa iyo kuliyadii hore ee Jaalisiyaad Cabdikood Cabdullaahi aan wax ka weydiino dhibaatada ay shacabka kula kulmaan iyo ka dawlad ahaan sida ay ula dhaqmaan shacabka ku dhibaataysan isticmaalka halkani wado wariye walaal waxaan ku sheegayaa maadaama aan ahay taliye ku xigeenka aagan amniga aagan aad iyo aad u kiiba boqol waxaan dhihi karaa u sugan yahay walow ay jiraan dhacdooyin yaryar oo ay hayaan nimanka ka soo horjeeda dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya dhacdooyinkaas inta badan waa aan ka hortagnaa marar waxaa jirta dad shacabka Soomaaliyeed iyo way xaqiiqatan waxaan ku sheegayaa annaga aaga aan joogno mar walba waxaan diyaar u nahay shacabka Soomaaliyeed inay maraan mar aan annaga si gaar ugu goynaana ma jirto xaqiiqatan waxaan ku sheegayaa muddo 5 maalin ka hor ahba waxaan ku guuleysanay miino uu dhigay cadawga dawladda ka soo horjeeda miinada oo aan ku guuleysanay in aan soo bixino haddii aan soo bixinayna waxaan u gudbinay taliska sare ee annaga naga sare waxaan u ballan qaadaynaa shacabka Soomaaliyeed ee mara jidka warshadaha in mar walba ay ku soo dhawoodaan dawladooda askartooda ciidamadooda iyo saraakiishooda daawadayaal iminka sida u jeedaan waxayna dhex taaganahay gaar ahaan inta u dhaxaysa ex control afgooyi iyo kuliyadii hore Jaalisiyaad waxaana xaqiiqa inay in badan dadku ay doogsan yihiin in wadadani ay dhex taaganahay tahay wadada kaliya ee laga kala magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqi weyn ee Bakaaraha oo halka ay ku tiirsantaa inta badan nolosha dadka bulshada ah wadadanina qaarkeed waxa ka dhaca dhacdooyin kala duwan oo dhibaato soo gaarta dadka shacabka Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag Somali Channel Muqdisho xukuumadda dawladda ku meel gaarka ah ayaa soo bandhigtay waxqabadka horumarineed ee horyaalla sanadaha soo socda. Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto ayaa warkaas noo soo diray. ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga Cabdiwali Maxamed Cali oo hadal ka jeedinayay munaasabad lagu soo bandhigayay himilooyinka qarniga ay tiigsanayso xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu wasiirku ka warbixiyay howlaha horyaalla dawladda ee dhinaca horumarinta munaasabadda way ka soo qayb galeen wasiirka ka tirsan xukuumadda ku meel gaarka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo mas'uuliyiin ka socday hay'adaha ayaa wasiirka waxa uu sheegay in ilaa 8 qodob ay qorsheenayaan inay horumariyaan oo ay ka mid yihiin horumarinta waxbarashada iyo la dagaalanka saboolnimada iyo abaaraha ee ilaa 2015 waxaan ugu farsanahay inaan maanta halkaan soo dhibaado iyada oo aanu qabnayno suuqyada ku saabsan barnaamijka la yiraahdo himilada qarniga ama luqadda ingiriiska loo yaqaano Millennium Development Goalska barnaamijkaas waxaa ka shaqeynaya warbixinta halkaan ka dhagaysateena soo diyaariyey shaqaalaha wasaaradda qorsheynta qaranka iyo xiriirka caalamiga runtii aad ugu mahadsan yihiin shaqaaluhu arrintaas ay hadda sameeyeen iyo tallaabooyinkaas muuqdo ay qaadeen iyada oo
waqti ka yar bil ay dowladdu jirto dowladana waan ka tirsanahay maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo in yani buwaagta la qiimeeyo waad aragteen warbixintii la sameeyo waad aragteen iyadoo weliba shaqaaluhu ay arrintaas ka soo qaadayaan meel oo aad u hooseyso oo aysan tashiilaad badan oo loo baahna inay ku shaqeeyaan aysan ku shaqeyn xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa xilligani hor yaalla howlo fara badan oo ku aadan waxqabadka ku aadan dalka Soomaaliya. Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto, Somali Channel, Muqdisho. magaalada Laascaano ee gobolka Sool wiil dhalinyaro ayaa ku soo bandhigay aalad casri ah aaladaas oo uu soo bandhigay telefishinka caalamiga ee Somali Channel. warkana waxaa nooga soo diray wariyahayaga gobolada Sool ee magaalada Laascaano Maxamed Cismaan Cabdinuur. wiil dhalinyaro oo magaciisa lagu magacaabo Cabdulqaadir Maxamed Jaamac isla markaasna isku hawlay inuu sameeyo alaab tiknoolajiyad casri ah hore looga arag gudahaan gobolada Soomaaliya isla markaasna ku nool magaalada Laascaano. Cabdulqaadir waxa uu sameeyay qalab casri ah sida aragtaanba qalabkan loo isticmaalo in lagu kala bedelo ciyaaraha iyadoo dadka ku dhaqan magaalada Laascaano ma ay si aad u daneeyaan sportska ama ciyaaraha marka hore ku soo Somali Channel TV. Cabdulqaadir waxaad bixin kooban naga siisaa bal xilligii kugu dhalatay fikirka inaad samayso qalabkan. fikirkan wuxuu u dhashay TV daawanaya waan muraayadana kale ka shashada wadna waxay u socdaan inaan baasha isku dayo maadaama ahay physics-ka. Cabdulqaadir waxaad noo wartaa waad ogtahay gobolka Sool waxaa ka jira mid jiraan dhalinyarada goroma ay ku ciyaari lahaayeen dayac badan baa sportska haysta marka maxaa ku kalifiyadaan goroma jirin inaad samayso aaladan casriga wali waxaa jirta horta wax kasta waxa la sameysan karo garoon waa la dhisan karaa financial dhaqaale waa la heli karaa laakiinse maadaama inaan dowlad lahayn oo aynaan muraadahana inaan ka heli karin FIFA aynaan siin karin inaan inagu gacanteena ku samaysano oo productionkeena aan dunida dhisno waayo waxaad noo sheegtaa bal qalabkan uu ka samaysan yahay adoo koobaya inta nooca isugu jiraan waxyaabaha uu ka samaysan yahay aaladan wuxuu ka samaysan yahay waxaa ugu fara badan electric sida maskax iyo wayr fara badan oo iyaguna display-ga daaraya iyo muraayada aad aragtay baalgo kala soconayo marka maskaxdaasi maxay tahay iyadana uu ku fadhiyayo frame maskaxda ku jirta marka maxay tahay maskaxdaas waxa weeyaan jirbaano fara badan oo la isla xidhayo oo lamarada kala duduwaya oo lamarada kala bedbedelaya marka keyboardka laga soo shido marka sida la waa markii horeysay Laascaano uga arko qalab noocan oo kala horena ma aqoon dadka reer Laascaano marka adigu markaan barashadeeda cilmigan xagee soo baratay cilmigan waxba wadda ku tirsan leeyahay aniga cilmigan waxa igu soo waxaan kala dhex baxay physics-ka gaar ahaan chapter electron marka aad lambar kaliya bay qortaa masalan kartaa kuwa xarfaa ama sida Somali Channel TV oo kale isi weyntaasi oo wax kasta dadaalka ku xiran tahay marxalado fara badan bay soo martay maray sida ka sii leeyahay jirta laakiin maanta waxaan maraa waxba kama dhacdo kuwa caalamka ka howlgala sida arrimada tan weyn tahay oo ay ka mid tahay kuwa caalamka oo kale marka qorshaha kugu jirta alaabtan casrigan oo yar ma samayso mid saddex meelood meel culeyskeeda iyo tan maanta hayno bal isku dayana sameeyo kana qurux badan anta caalamkana inay ka qurux badan tamayaan aan marna ma jirtaa meelaha xiriir la samaysay sidii ay kaaga caawin lahaayeen dhaqaalaha ama ay kaaga gadan lahaayeen kala suuqgeyn oo kale may laakiin inkan bilaabaya marka adu dhawaan baan bilaabaya xiriirka waxaan rabaa in magac ku qorayo getaway oo kale marka getaway ma baasha magaceeda aad uga baxdayba mise waa maxay muxuu yahay magacan magaca waxa weeyaan iskuulka ugu horeeyay waan wax ku soo barto markaas adaan badini marka tiknoolajiyada aad ku bartaa qalabkan ku samayso may iga caawiya hay'ad fara badan oo waxaan cilmiga weysaan barashada hadda sidaa ognahay waxaa ka socda caasimadda maamul goboleedka Puntland ee Garowe koobkii gobolada Soomaaliya ma jirtaa xiriir aad la samaysay maadaama qalabkan casriga horey looga arag maamulada Puntland ama Somaliland in qalabkan ay ka caawiyaan ما يحلل لما سمي لكن سادنا بمويان كوب نو كسر دعاء باشن سميته باشنا وحي ما ساود مي بكوب نو بلامه hadda waxaa laga yaabaa inay ku daawanayaan in badan oo dhalatay gobolka Sool ama magaalada Laascaano isla markaana daneeya horumarka bulshadooda marka maxaad iga bal oran lahayd oo ka faa'iideysanaya fursad qaaliga Somali Channel ku waxaan dhalinyarada la mid soo kacsa iyo kuwa sportiga inay waqtigooda ay kullu sportiga ay ku kabaan kubadana ciyaarayaan xirfadaha bulshadooda iyo aqoontooda kor u qaadaan
waayo dadka caalamka kubadda ka ciyaara lacagtooda lacag kula soo baxaan laakiin se inagu aad baynu dambeynaa lacagna cagayna kula soo baxaan marka haddii inaan wax ku qabin ma soo joogayso aad qaadada kula kafto miyaan laakiin garoonka ma hayna maxaan ku dhifayeen waxaan garoonka la dhisan karaa laakiin se tan oo kale oo midan bilaadanka maskaxdiisa ku soo dhacan ayaa farmaarsan tahay Cabdiraxmaan waxaan saadar baan shashad madan banaankanaaye baldaaro ama rebelgate si dawlayaashu ayna inoola arkaan waxaan meesha ka jira طبعا عندنا 77 63 77 ولا مركي بحي وكعسان كانوا مريا اوكي marka cagaarku ka soo galaya cagaarku ka soo galaya casaan marka aan number aad doonto ama number ka soo doonayso ala arkanaya ila boqol ila number ko uu ku jiraa intii ciyaartooyga oo dhan ka kooban hadda 73 73 ha okay number kale kale gado okay number kale 663 kale gado additional thank you guys seven kale 76 waa isku bedeli karaa markaan doonayo inaan number 6 baa waqtiga wax lagu daro waqtiga 6 daqiiqo lagu daro kale bal 6 kaliya ma gaari karaa 6 ka tan waxay taagan tahay kale additional time ka waqtiga extra محمد عثمان عبد النور سماده channel TV gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Togdheer ayaa maanta markii ugu horeysay warbixin ka bixiyay kiisaska dambiyada ee maxkamadaha soo galay sanadkan si dhamaanaya ee 2010 maxamed Cawad Maxamed ayaa umuurtan eegaya gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ee gobolka Togdheer Cabdiqaadir Axmed Maxamuud ayaa shaaciyay ilaa 1379 kiis oo soo galay sanadan 2010 maxkamadda gobolka Togdheer ay dhameystireen 1305 kiis isagoo sheegay inay harsan yihiin oo kaliya 89 kiis mas'uulkani garsoorka ee gobolka Togdheer ayaa waxa uu xusay in kiisaskani noocyada madaniga ah ay isugu jiraan ciqaab furniin guur macaamilo iyo weliba kiisaska gaarka ah la xiriira xukunka dhinaca dadka loo haysto argagixisada gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Togdheer Cabdiqaadir Axmed Maxamuud waxa uu ka deyriyay sugidda ammaanka guud ee maxkamadda gobolka isagoo xusay in waqtiyada la qaadayo kiisaska xasaasiga ay khatar geli karto maxkamaddu isagoo xusay in maxkamaddu lahayn ciidan badan oo sugi kara ammaanka guud ee maxkamadda waxa kale uu ka dhawaajiyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee gobolka Togdheer inay jiraan xilligani dad ku soo xadgudbaya deyrka maxkamadda ee gobolka Togdheer kaasoo ugu baaqay maamulka gobolka Togdheer inay dhinaca isaga leexiyaan arrintani hortaagan sidii maxkamadda gobolka Togdheer loogu sameyn lahaa deer geesta kale gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ee gobolka Togdheer Cabdiqaadir Maxamuud waxa uu walaac xoogan ka muujiyay arrimaha kiisaskaas ku soo hoyanaya maxkamadda isagoo tilmaamay in mararka qaar kiisaska maxkamadda soo gala ay isku dhacyo ka dhalin karaan bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer haddii aanay la shaqeynin maxkamadda salaadiinta cuqaasha iyo wax karadka ugu dambeyntii waxa uu gudoomiyaha maxkamadda sare ee gobolka Togdheer tilmaamay in baahiyaha xilligan ugu weyn ee maxkamadda Togdheer haysta ay ugu weyn tahay dhanka agabka maxkamaddu u baahan tahay sida gaadiidka iyo hawlaha fulinta maxamed Cawad Maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Channel TV bura halka aad warkaas ka daawanaysaan ama barta aad kala socotaan waa London xarunta dhexe ee telefishinka caalamiga ee Somali Channel magaalada Boorama ee gobolka Awdal ayaa mayorku waxa uu ku qabtay kulan xasaasi ah oo uu la yeeshay shirkadda Dhamaaska ee maamusha kawaanka casriga ah ee laga dhisay magaaladaas dhanka kalena ciidamo ka tirsan booliiska magaalada Boorama ayaa tababar ku aadan xuquuqda carruurta iyo qaabka loola dhaqmo ama loola macaamilo marka ay galaan falal dambiyeedyo loogu soo xiray wariyaha iyaga gobolka Awdal iyo Salal Cabdifitaax Axmed ayaa soo diray warkan maayarka magaalada Boorama Cabdiraxmaan Shide Bile ayaa maanta kulan la yeeshay shirkadda Dhamaaska ee maamulka kawaanka casriga ah ee Boorama haysa xubnaha shirkadaasi iyo maamulka magaalada Boorama ayaa ka wada hadlay dardargelinta howlaha kawaanka casriga ah ee magaalada Boorama maayarka magaalada Boorama Cabdiraxmaan Shide Bile oo madashan ka hadlay ayaa sheegay in 4 bisha soo socota uu si rasmi ah u bilaaban doono howlaha kawaanka casriga ah ee magaalada Boorama
waxaan leenahay qaarna waanu wargelinaynaa waxaan leenahay waa inay noo soo sheegaan maadaama tadawar loo gudbayo wixii la doonayay hilib nadiif ahaa ciddii meel kula dhumanaysana inay noo soo sheegaan ciidanka nabadgelyadana waxaanu faraynaa oon ku adkaynaynaa bisha 4teeda inay xooluhu tegayaan oo la geynayo kawaanka cusub inaan lagu qali karin magaalada iyo islootarkii horena uu xidhmaya haddii la idhaahdo annaguna way saasaynu ku wada shaqaynaynaa hadday tahay wasaaradda xanaanada xoolaha hadday tahay maxay haynaanay dowladda hoose hadday tahay shirkadda imanka tiina maxay haynaanay kawaanka maamuli doonta adeegga bixin doonta dabcan idinka waxaa laydinka bixin yahay waa adeeg bixinta la sheegayna waa nadaafada waxaa sidoo kale madashan ka hadleen xubnaha shirkadda gacanta ku haysta maamulka kawaanka casriga ah ee Boorama laga dhisay gobolada cisho waxaa la doonayaa in horta maamulkii shirkadda sameeyay maraysa koow shaqaalayn la dalbado wixii lagu shaqaysan lahaa ee lagu shaqayn lahaa magaalada tawxiid lacagtii la fasaxo lacagta la bixiyay sanadka kala meesha ay fanoon lacag waxa lagu shaqeeyo waynu shaqayn oo boor la sameeyo kadib boorkaasna uu executive kale ee maamulka oo soo sameeyo oo shaqada la dhaqaajiyo iyo in markaa wixii go'aan kala adigoon kala jiro la isku noqdo wax kale oo ku noqosho ah oo hay'ad loogu noqonaya ama dawlad hoose loogu noqonaya meesha ma jirtay wixii dambe inaga hawshii noo taala sidii hawshii loo dhaqaajiyo wax kale iyo dood kale oo meesha noo taala habeeraad meesha ma jirto waa ma aan galo ama banaanka joogsano wax kale oo yaala meesha ma jirto hay'ad wax loogu noqdaa iyo wax kale ma jirto dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Nuur Sugaal ayaa tababar u soo gabagabeeyay xubno ka tirsan ciidamada booliska Boorama kuwaasoo baranaya ilaalinta xuquuqda carruurta ay leeyihiin tababarkan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay hay'adda badbaadinta carruurta ee Save the Children waxaana madashan ka hadlay Ismaaciil Yaxye oo ka socday hay'addaasi badbaadinta carruurta wuxuuna yiri waxaan kulli ku baraarujinayaa wixii aad barateen ku saabsanaa xuquuqda carruurta muddo dheer soo wadnay gobolkan uu yahay goboladii inta badan laga bilaabo bal aynu wax ka bilowno dawladda cusubna kulli inkastoo Awdal xagga isbedelka dawladda aan aad looga walaalaynay berigii hore ee isbedelku socday laakiin haddana dawladdu waxay loo ballan qaaday in isbedel dhici doono isbedelka taa waxa ka mid ah hagaajinta xuquuqda carruurta la hagaajiyo ma uun wasiir ku bedeliyo gudoomiye ku bedeliyo level ku bedeliyo ay dadka nolosha bini'aadankeeda loo shaqeeyo bulshada hoose ayaa isbedelka la doonaya horta waa ka ma ahan xilka sare ee madaxda marka hadda idinku maadaama tiin dadkii booliska haye saraakiishii booliska mudada daabkeeda hayay waxaan ugu idinku baraarujinayaa wixii hore kaftan bay hayeen laakiin xaqa xuquuqda carruurta sidoo kale madashan waxaa ka hadlay taliyaha cusub ee CID-da ee gobolka Awdal Maxamed Cabdullaahi Muuse Shanqadh wuxuuna ku baaqay in la ilaaliyo xuquuqda carruurta sidaan ilaalinayna waxaan u ballan qaadanaynaa inaan ilaalin doono si laba jibaari doono intooda badanna aan ku dadaali doono inaanu annagu wixii hay-aduhu na bareen aanu ku tagrifalno oo sidii ay noo fareen annaguna dee ugu ilaalino ugu dambeyntii waxaa madashan ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdi Nuur Sugaal wuxuuna yiri dadkii niga aad ka timaadeen iyo saldhigyadiina aad u sheegtaan waxaan carruurteena ma wada kafee karo waxaa jira dib jir suuqa ka baarashaa waxaan leenahay ilaahay wax fiican iyagana ha siiyo kaa laftiisoo laga gardaranyahay boolis wadaad aragto oo mid kaloo ka xuuqdoon xoog bay isku meedhaan ama midi ku jarjeexayo ilaa tallaabada ka qaado kana qabato ka wax dilayna aad qabato kana qabato loo baahan in xariis loo muujiyo loo baahan waxa loo baahan yahay carruurta marka la xidho inaan loo geynin kalimadna xashiyad cabba khamriga cabba darsi yar baa ku haystay inuu darsi ka weyn soo qaaday waa markuu gidaarka joogo wuxuu qoonbog jeelka ugu tagaya waxa jeelka gooniga loo sameeyay Cabdi Fataax Ahmed Somali Channel magaalada Boorama munaasabad ballaaran oo ay ku kala wareegayeen xilka gudoomiyihii hore ee magaalada amaba degmada Boon ee gobolka Salal ayaa lagu qabtay degmadaas Boon waxaana ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada iyo maamulka gobolka Salal aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee Somaliland wariyahayaga Cabdi Fataax Ahmed oo wakiilka Somali Channel ee gobolada Awdal iyo Salal ayaa warbixintan soo diray
degmada boon ee gobolka salel waxaa ka dhacay munaasabad ballaaran oo ay xilka ku kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee degmadaasi iyo gudoomiyaha cusub ee degmadaasi loo soo magacaabay munaasabadan waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka salel saraakiisha ciidamada salaadiin aqoon-yahano qurbajooga degmadaasi ka soo jeeda haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada boon ugu horeen waxaa madashan ka hadlay gudoomiyihii hore ee degmada boon raage cismaan waaberi wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu xilkii in muddo ah uu hayay uu ku wareejiyo mas-uul aad u da'yar kana soo jeeda degmadaasi boon waxaa sidoo kale madashan ka hadlay gudoomiyaha cusub ee degmada boon loo soo magacaabay maxamed khayre dhimbiil wuxuuna ka codsaday gudoomiyihii hore ee degmada boon inuu kala shaqeeyo howsha culus ee hortaala halkan xilka igu wareejiyeen sida fiican idii soo raamanayo iyagana waxaan leeyahay waxaan ka codsanayaa inay garab taagnaadeen oon talo iyo tusaalaba ay ila garab joogaan ay ku amaanan yihiin oo gaabkaada ku suteen iminkana ayaan wada qaadaynaa rag iyo dumar iyo dhalinyar iyo aqoonyahan hortajoogta sidoo kale madashan waxaa ka hadlay caaqil idris axmed oo ka mid ah cuqaasha ugu waaweyn gobolada owdal iyo salal wuxuuna yidhi iyo guddigii intii la soo shaqaynaysay waxqabadkoodii halkan ay ka sheegeen horta aad baan ugu mahadinayaa daquusubna waxaa laga filayaa isagana inuu halkaa ka sii wado midna waxaan sheegayaa boon taariikh bay leedahay waa loogaa odayaasheedu diina waa la sheegay dadkaa waxu qabso dalka anay ka bilaabantay halkanay ahayd gabagabadii munaasabadan ayay labada gudoomiye ee kursiga isku baneeyay kala gudoomiyeen dukumiintiyadii degmada boon ee gobolka salal cabdifitaax axmed Somali Channel magaalada Boorama roobab dabaylo iyo duufaan xoog la wata ayaa ku dhuftay wadanka isagu qaaradda ah ee la yiraahdo Australia khasaaraha wadankaas gaaray ayaa lagu qiyaasay in ka badan 6 bilyan oo doolarka Mareykanka ah gabi ahaan cirif ilaa iyo cirif ayaa qaaradda Australia waxa harqiyay roobab wata dabaylo iyo duufaano saraakiisha saadaasha hawada ee wadanka Australia ayaa ka digay in saddexda cisho ee soo socotana ay roobabkaas ama tornadooyin aan hore loo arag ay ka dhici doonaan waxaa dhammaan heegan la geliyay ciidanka qalabka sida ee wadanka Australia iyo hay'adaha caafimaadka ee kala duwan sarkaal u hadlay laanta caafimaadka ama hay'adda caafimaadka guud ee Australia ayaa sheegay in loo baahan yahay inaan dadka bini'aadanka ah ee ku dhaqan qaaradaasi aysan guryaha ka soo bixin daadadkan iyo duufaanahan ayaa loo arkay inay yihiin kuwo aan horay uga dhicin qaaradda Australia wadanka Tunisia ee dhaca waqooyiga qaaradda Afrika ee ka tirsan ururka jaamacadda Carabtana madaxweynahooda ayaa ballan ku qaaday inuu gacan adag ku qaban doono dadka mudaharaadaya ee sida sharci darrada ah u burburinaya buu yiri goobaha ganacsi iyo goobaha dawladda ee magaalada Tunis madaxweynaha oo la hadlayay saxaafadda Tunisia ee caalamka ayaa u sheegay in loo baahan yahay dadkani marka ay doonayaan in ay qabtaan mudaharaad in ay ka haystaan amar dawladda iyo degmada ay ku qabanayaan laanta ammaanka amaba maamulka booliiska ee degmadaas hadduu eeba idmana tan iyo intaynu dib ugu kulmi doono warkan iyo mid la mid ah waa anigoo Cabdilaahi Xuseen Maariya oo idinkaga tagaya assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.